waa tahay faarax afcad sida la og yahay wuxuu ahaa nin mareexaan ah oo reer diini oo reer waasalmaad ka ah nimankii la ohan jiray reer cali sirwac nimanka la yidhaahdo ah ha yeeshee waxay xagga hooyo walaala ka ahaayeen niman dhulbahantaa oo baararsama ah nin cali dalmad iyo la ohan jiray jaamac dalmad iyo niman ay isku hooyo ahaayeen faarax sida la og yahay ama aanu soo sheegnay wuxuu ahaa nin dagaalyahana sidaa darteed kama maarmo had iyo jeer inuu helo faras aad u wanaagsan oo uu ku dagaal galo oo uu ama turki ku raaco ama geel ku doonto ciyaantii dambe ayaa waxaa ka dhintay faras uu lahaa oo la ohan jiray xamar dawaaf oo uu in badan gabayadiisa ku daray oo gabayaduu ku daray waxaa ka mid ahaa haddii aanan dawaaf oo ku geyn doh iyo laasoole durdurkii shilaabow haddaan faras ku dooyeynin dooxada higlooley hadday dunya kugu foofto duntii habar saleebaan haddaan duudkii kala reebo dad ninkaanu qabannaa hadduu duni ka sheekeeyo gabayo caynkaasoo badanoo xamar dawaaf ku saabsan ayaa jira berigii dambe ayuu ka dhintay markaa ayuu wuxuu is yidhi farda nugaaleed faras aan ka soo jeedin xamar dawaaf oo kale marna kuu noqon maayo wuxuu markaa ka fakeray inuu aado walaalihii oo halkaa jira halkaa ayuu tegey markii uu tegey buu wixii u socday iyo faraskii weydiistay aad baana loo soo dhaweeyey oo dee looma arkayn inay niman dhulbahantaa iskooyo kaliya yihiin nin magaciisu ka horreeyey ayuu ahaa sidaa darteed buu had ya jeer sida gabayada ka muuqata ayuu wuxuu imaan jiray geedka shirka oo garaadku joogo had ya jeer garaadkaasoo loo malaynayo inuu ahaa garaad maxamuud gabayo badan ayuu tiriyey oo faraskii uu doonayey uu ku tilmaamayo gabayadaa mid ka mid ah oo aad soomaalida u taqaan ayaa waxaa ka mid ah garaadow bil laba kowsatay yambay ka soo kacaya boqonkaygu waa soo rognaa tan iyo baarguune dhulku wuxuu ballaarnaa far iyo baabacaan dhigaya waxba baatir geel lo iyo baarqabaha isiine baasaar lamood cawgarool waa u baahnahay balqamaalka xoolaha haddii bawdka laga keeno neefkii bagaasiya ishaa laga basaasaaye barriimaha ahdaa'uga ekow buulal ha lahaado barta carowga bawdada tafaha bay ha ku lahaado goortii gugiisii bartamo ha isbaxaa doorsho bafto iyo sidii xaasiyeed boor ha ka caddaado habidhaama bayrow sidii mara la boodeeyey sida baarqabada maalin guurbuur ha la ekaado sida naagihii baararsamay ha u bog laalaado birta laga rakaabsado hadday bidixdu miisaanto baashaali maayee haddaan balow ilaa fuulmo aan labada baabaco ku dhigo luqunta baaceeda sida bahalka aaroo waxdili boodda ha lahaado booraan hadduu igula dhaco bahora saynsaaban meeshii barkoodkii fi jiray bawnaha ahaada oo waxaa la yidhi bawnuhu waa bahal yaroo dabagaalah u egoo bariga ah ayaa laga helaa baa layidhi gabay kale oo kaa ay isku ujeeddo yihiin ayuu mar kalena tiriyey oo wuxuu yidhi tubta wuxuu yidhi nin walaalo toolmoon leh baatuu yidhaa hela ee aan tilmaamu neefkaa nugaal uga tubqaadayo tubta webi tamuunada garduur aradka taameel leh maroodigu halkuu tugan yahee gerigu tooreeyo tub dheer baanu geela u maraa waa tamarinaaye meeshii taxaaba leh fardaha waa u turanaaye ayuu jaraha igu taabanayna ha iska tabaqleeyo neefkii kadlaha kugu tumaata harakaa gooye tooraynta kooraha abtow ha iska takantooqo toomaha hareeriga hadduu teeyo keeriyoodo abtow tagoogta ha ku wado tarax walaasheeda waa aartarari jadal neefkuugu tooxsamaye caynaanka oon taaba idhi tarax ha eeraamo riddada tii fog warankaa ninkii kaala tegayaaye meeshaan tumaati u qabsado torog ha ii geeyo tol weyn iyo tol weyn laba qoloo taarijiin wada ah daraan laysu turayn haddii tuuta layska arko waa aartarari jadal neefkuugu tooxsamaye caynaanka oon taaba idhi tarax ha eeraamo tunka iyo tarrada jeeniga iyo turuqo ha u buuxo rooduna sidii toon abqale ha iska taagnaato nin tilmaaman baanahay haddaan taga mareexaane meeshii tusma'a jadal bay igu tuhmaayaane tafagaabkanadi kuma dhaco ee tiigar ha ahaado sidii taanigii aan fuuli jiray ha u tilmaanaado waa faraska uu markaa uu helay oo loo bixeeyey xamar cilaan
faraskaa weeye faraska uu markii dambe xoolaha tirada badan laga siiyey ninkii lahaa isagoo weliba ka caraysan. waxaa la yidhi waxaa la geen jiray halka ay farduhu ka cabaan maalin walba si uu faraska uu doonayo uu markaa farta ugu fiiqo oo loogu iibiyo. faraskii soo agmaraya genyadii la tusada wuxuu diidaba maalintii dambe ayuu arkay faras fardaha kale aan la mid ahayn oo biyaha meeshii uu ku dareemo in biyuhu ay calow yihiin ama ay xun yihiin ka istaagaya oo farduhu markay cabbaan kadib isagu inta yimaado uu markaa biyaha doonanayo halka ugu wanaagsan. dhowr maalmood ayuu u fiirsaday isaga oo caynka ah oo cabbaaya. kii ayuu ku dhegay, kii ayuu yidhi kaa midaan ahayn oo aan nugaalka kala tegaayo maanta ma jirto. ninkii ayaa loo tegey, ninkii waa diiday. ninkii markii uu diiday waxaa haddana loo ergooday garaadkii ayaa u yeeray. wuxuu yidhi faraskaas ayaan kaaga dhegay oo ninka afcal la yidhaahdo meel fog inooga yimid ayaanu siinaynaa, wax alla waxaa doontana sheego. ninkii wax la wada iyo wax la wadaba xoolo badan oo aan markaas faras ka qiimo badnaa qura ayaa la siiyey. geel badan, gaashaan, afcadaaba sheegi doona. wuxuu yidhi 2 haatan dhashay iyo 2 haatan dhalaysi oo mid kaleoo ka dhex tuura iyo gaashaan dheeb wiileeda iyo dhaameel baa laga dhiibay oo kii lahaa dhul xariiq iyo dhacsiinuu ka ahaabu. marna markii uu cara dhulbahante ka soo fuulay ama baxa soo ahaa waa kii lahaa ama waa 8 jir ama waa 9 jir ama wasla sidiioo 10kaa u sugmay. ninkuu silada ka gooyo ama usuulka ka gaabsho aan la iima su'aaleetin ha looga wareego waa kii lahaa. marna faraskaa weeye faraska uu inta dagaalka weyn ku galay haasaha iyo meelaha halistaa kala baxay markii dambe oo uu ammaanayay uu lahaa aarkama rugsiiyow daraad xamad sida u rooray muxuu raafa ereygii ugaarkay iskala raacay saryankii raraameed miyuu 2 ruug saaray raxantii hadday sii dhignayd reelabka agtiisa dhulka lama rabaasee muxuu raanta kor u laacay. rugta iyo duleedkii haddii reefadna u raacay kolka inaan naftana ka rabo yaa ragga u sheega. waa faraska la yidhi xamar cilaan ee uu waagii dambe fuuli jiray.